الرحمن الرحيم ummadda Soomaaliyeed ee golahan iskugu timi hogaaminta jabhadda xoreynta Ogaadeniya ONLF dhammaan marti sharafeedka ee kala duwan halkan fagaaraha ka soo qayb galay ugu horeyntii anigoo ku hadlaya dhammaan magaca suldaanada ugaasyada ee beesh halka dhaafin maayo waa beeshii inta ugu badan deegaanka looga yaqaano beeshii olol diille halkaana dhaafin maayo anigoo afkoodii ku hadlaya marka ugu horeysa salaan ballaaran ayaan idiin soo gudbinayaa marka xigta waxaan u maleynayaa mowduucu uu gaaban yahay markii ugu horeysay ee asaaskii deegaankan dowladnimo la soo asaasay xubnihii baarlamaantariga ka soo qayb galay ee ugu badnaa ONLF annagoo reer ahaan doori iyo maxaanku idhahdaa doonasho iyo reer toona samaynin waxaanu nalaga soo xushay ONLF noo soo xulatay xubnihii baarlamaanka ee ka soo qayb galay siyaasiyan xilligaa marka laga soo gudbay ee ONLF ay qaabkii wax u socdaan gumaysigii aragtay ee duurka u dareertay annagoo aan gudaha ku adhnee waxa weeyaan annagana xilligaas ayaaba noogu dambaysay wax baarlamaantariyana ama siyaasada ee aan ka qayb galno ee deegaankaasi uu leeyahay aniga justification kale ma lihi ninka odayga allah u naxariistay magaciisa soo qaaday wuxuu ahaa suldaan olol diille marxuumku wuxuu dhintay waa magac xilligaasuu taagnaa Ogaadeniya lama gumaysanayo ayuu soo taagnaa ma ahayn umana dhalanin Ogaadeen wasnata Ogaadeen laakiin wuxuu garansanaa qoqobidiina la kala qoqobay magacyadii Soomaalida lagu kala qoqobay ayuu xibinteedii haystay oo xibinka uu asagu ka taagnaa waxay ahayd Ogaadeniya gobolka Ogaadeniya marka taas laga gudbo Soomaali waxa loo kala qaaday NFD waxa weeyaan Southern Somali waxa weeyaan Somaliland Somali Djibouti okay magac Djibouti ayaa lagu soo qaaday Soomaali laguma soo qaadin astays marka waxa weeyaan hadafkaygu wuxuu ahaa waa hal meel magaca haddii saaka quraca la baxno quracaasi lagu midoobo magacu waxa weeyaan waa tilmaan mooyaane sensi ma sameynayo muhiimadda waxa sensiga sameynaya falka jabhadaasi ay shalay toole ku soo taagneed ee maantana ay ku taagan tahay oo ah xornimo doon oo aan qof Soomaaliya la gumaysan waxaana ila wanaagsan aniga in aan dhammaan haddaan Soomaali nahay isla garanno magaca aanan ku dhaganaanin amalka yaga what the sense of this kan sensigan muxuu sameynayaa okay ka qaybgalka tusaale ahaan waxa weeyaan deegaankan dad baa soo waday ummad badan baa cadaalad darro tirsanaysay cadaalad darradii la tirsanay waa lagu badnaa laakiin waa la soo noolaa waa la soo wadwaday inkastoo dhabarku sii jeeda waxayna guul darro ay kala kulanto oo guul u gaari weydo mar walba waxa weeyaan waa cadaalad darradii iyo midnimadii dhab ahaantii waayo qofku hadduusan wuxuusan ahayn oo isu ekaysiiyo oo ama iska dhigo ma noqon karo kumana guul gaari karo dowladdii Cabdi Maxamed Cumar aanu soo marray ka xoog weyneed ka tabar weyneed ka muruq weyneed oo ka dadleyn badneed ka cadaalad darreedna ma jirin
halka ay ku dambaysana waxa weeyaan waxaa horseed u ah cadaalad darro ONLF xaggeedii haddaan taa mithaal u soo qaato waxaa maanta stageka keenay ma aha magaca ogaadeene hadafka ay ku taagneed ayaa keenay in ay maanta si ballaaran ummadda Soomaaliyeed isugu soo yeerto fagaarahan ka muuqato ee ay halkaa timaado warkan dhintay Allah u naxariisto godbuuba u galay anigu waxaan goobjoog u ahaa wiil baarcad ee qurux badan oo maxaan ku yiraahdaa tuulo makalaka Saraawid Ethiopia ay taagan tahay annaguna noo dhinaca ka baqaya dhinacna ka shaqeynaya aan dhex taagnahay oo habadii inta iska dhaafay torrey la fuulay gumaysidiid buu ahaa gumaysidiidkaas maanta waxa weeyaan OLF ay ku soo nooleed ONLF waxa weeyaan waa jidka xaqa ee ah in aysan u doonin dalkoodii dadkoodii ila gumaysto waxaa la sameeyay oo sidaa oo kaleeta jira haddii god loo qodi karayo god kasta waa la qoday waa bilow-aadmi way u dhabaraadeegeen aad bay u mahadsan yihiin dadkii ay u halgameenna waa dad Soomaaliyeed ee ma aha ogaadeen dhab ahaantii ogaadeen ma aha qabiilka ogaadeen ama waa ogaadeeniya waxay u soo halgameen waxa aan taas dhinac dhigaya waxa weeyaan ururku iminka jid kale ayuu halgan ugu jiraa oo xurnimo ku gaadhsiinayo ummadeenna deegaanka ogaadeeniya haddii aan u qaadanno taas in ay ogaadeen yihiin oo aan ogaadeen haddana u deeniraano war shalay baa la qaldamay ee maantana ma ku daraynaa maantana inaan ku darro Soomaaliyeed ma isku daynaa now maya waxa weeyaan marka ugu horeysa ogaadeen waa reer Allah noo ballaariyo hadduu noo batana waa wiil Soomaaliyeed oo noo tira batay aad bay u mahadsan yihiin inta ay halgameen oo maxaan ku yiraahdaa wiil qabiil ogaadeen la yiraahdo ka soo jeeday oo halganka ka qayb galena oo ogaadeeniya u dhintay waxa weeyaan Allah u naxariisto Soomaali buuna u dhintay ayaanu qaadanayaa aniga tayda ahaan sidaas aniga annaga haddii dhammaanna la yiraahdo oo qabiilkiina laga kaxeeyo war ogaadeen baad wadatiin haddiina la yiraahdo muxuu bedelayaa maxaa iga bedelmaya waa wiil Soomaaliyeed Soomaalinimadii kama tagin xornimaan ku helay xor baan ku ahay maxaa iga bedelmaya dadka fikradahaasi qabo beel ahaan marka la soo qaado beelaha Soomaaliyeed dhammaan waa ummad Soomaaliyeed oo isku jinsi ah annaga marka la eego aabbaha Soomaaliyeed dad ahaan waxaan u maleynayaa ilmaha Soomaaliyeed dhammaan ogaadeen ha ahaado qabiil kale ha ahaado maxaan ku yiraahdaa ma jeerteen ha ahaado habar gidir ha ahaado qolo kasta uu yahayba annagu waxaan u qabnaa ajuuraha marka la yiraahdo in ilmaha yaga ay yihiin dhammaan sideennaba marka ay saa u yaallaan ilmihi hadday doonayeen in koobabka wax loogu kala rido marka ugu horeysa ujeedadeennii ameel gaarne yaa magac ha la bedelo kan ha la sameeyo yaa la oran waxaan oran lahaa oo kaleeto reer walba ee wax tabanaya nin caqli leh oo aqoon leh wuu ku dhex jira kan aqoon leh waa inuuna hogaamiyaa reer kasto uu yahay aqoon-yaaniintu ha reeriyay u badanin dhaha mooyaane beel kasta ha ka dhex muuqato yaa nala dhiin oo kelmadda ha laga fogaado ayaan idin oran lahaa waayo aqoontu waxay keentaa in ay dad meel mariso jahiliyaduna wayna duminaysaa jahiliyaddu waa tan annaga aan nagu haysa oo kaleeto in magaca ogaadeeniya oo reserve area marna loo yaqiinay oo magacaasi noo hergale kaartoon kasta haddaad dhinaciisa soo rogto waxyaabaha khuseeya regionkan waxa weeyaan ogaadeeniya ayaa noogu qoran marka Soomaalinimo nagama kaxeenayo magacan ogaadeenna ma aha
ومجا أوغادينيا ديغانكا ومدني أي ودليد هايوي إنساس لو فهمو أيان إدين أوران لها مدك لهاتنا وحان أوران لها حاجة مركا لوتشيستو هالجمياشي ONLF هذا كتشوغا هوغان كهيا دي بدن سومري آد بي أمهاتين ديب كودي دال كودي اللي يكودينيني جيل وناكسن أو حلال إني أوجد بيان دوان إن أي سمستان وحويان إن أي وحكب دلان شروطي أما شرعي أما حير حوسات كعيسبك أيقو لا تشنيا كلا تشنيا عاقلين تا إيو أقويانين تا ديغان كينا أو ديغان كأوغادينيا آد أياد أمهات سنتين السلام عليكم ورحمة الله